kumanaan Soomaaliya ayaa ka soo qayb galay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo ay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ay muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanaayeen abaabulida xafladan iyo muujinta taageerada ay u hayaan dowladda Soomaaliya iyo waliba magacaabista ra'iisul wasaare Saacid oo tan iyo intii lagu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha uu diyaar garowga xafladan ka soconayay gudaha magaalada Columbus Ohio ee xarunta gobolka Ohio. xafladan waxaa ka hadlay qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus Ohio waxay ku dheeraadeen ahmiyadda dawladdu ay u leedahay shacabka iyo waliba sida looga baahan yahay shacabku inay isku garab taagaan dawladooda si looga baxo fowdada iyo dhibaatada sii 21 jirsatay ee Soomaaliya. qaar ka mid ah aqoon-yahankii ka hadlay meesha ayaa muujiyay ahmiyadda dhaqaalaha. waxaa xafladda daahfuray Cabdirasaaq Xareed oo ku hadlayay magaca abaabulayaasha xafladda. xafladan oo loo dhigayo looguna hambalay lagula soo dhaweynayo madaxda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo ku soo dhaweynayaa odayaasha, aqoon-yahanada, culimada, ardayda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay xafladan. waqtigu waa yiri saddex arrimood baan rabaa inaan taabto oo ah waxa ugu horeeyo si dawlad loo helo waa in la dhisaa nabadgelyada waxaa lagu dhisi karaa ummadda Soomaaliyeed inay iska ilowdo huuhaada walaahowga ay ku jirto oo la helaa dad Soomaaliyeed oo civil warkii keeshi in la helo hadaan la heshiin Soomaaliya ma ifanayso inta lagu jiro 4.5 ama qaybinta dadka Soomaaliyeed loo qaybinayo qabiil ummadda Soomaaliyeed kama baxayso kamana ifan doonto dhibaatada ay ku jirto. waxaan markaa ku talinayaa waxgaradka, aqoonyahanka, mas'uuliyiinta, dhalinyarada in la diido afka la yiraahdo 4.5 sababta meel la gaarsiinayo ma laha. halganadii kala duwanaa oo Soomaali soo martay markii laga soo bilaabo halgankii gobnadoolka ah ee xornimada maanta lagu cayaarayo nin walba ku dhufanayo loo soo maray raggii Soomaaliyeed ee xornimada doonka ku caanbaxay oo qabriga u aaday inay haween Soomaaliyeed ay ku lumansanaayeen inay haween Soomaaliyeed ee dhiigooda maalkooda iyo noloshooda. Congratulations to Prime Minister Sheridan, President Mohammed, the newly elected Parliament, the Speaker of the House, and the people of Somalia. I have a confession to make. I am not from Somalia. I have never been to Somalia, but I wish someday I can go to Somalia. If you ever have anything to do with having the next ambassador from the United States appointed to Somalia, I would like that job. si loo kobciyo ganacsiga waa in xuduudaha Afrika la isu furo. maanta ganacsiga adduunku waa isu furan yahay wax xiran ma leh. xuduudada waxa burburiyay waa ganacsiga horumarka la gaaray. haddaan iraahdo waxa hawshaas mar hore 80-meeyadii loo hirgeliyay IGAD ama Intergovernmental Authority of Development oo hadda isu bedeshay siyaasad. madaxda Soomaalida cusub ee saddexda oday ama mudane waxaan kula dardaarmi lahaa Soomaali waxa deeqa sinaan iyo garsoor iyo cadaalad baa deeqda oo ay wax ku qaataan. taas hadday idinka helaan waa idin raacayaan, waa idin hoggaansamayaan. haddii se idinka waayaan waa idinka hor imanayaan. kii oo maamaanteenu ku maamaahay wuxuu yidhi walla see walaa helaase walla leeta walaa heli doonto walla tag ee walladaa heli doonto yidhi. dadka la maamulayo dad oo xamar joogo oo 20 sano dagaal rafaad qabyaalad waxyaalaha isbedbedelay ku dhex jiro waaye. dadkii loo dhiibayna waa dheeldheel maaha maaragtay waxa ay ka mari doonaan. dabadeedna afka Soomaaliga 27 la qoray oo aniga iyo nin halkan fadhiya Cabdikariin la yiraahdo aanu geed hoostii wada seexan jirin
ambaasadorka aanu geedwada hoostiisa aan jirnay aanu gaarsiinay dadkii Soomaaliyeed luqadda inay qoraan maantana aan tagay samarkii Muqdisho Soomaaliya xamar aan tagay aan arkay ilmo Soomaaliyeed ee afkii ku hadlayaan luqadii qori karin waa wax dhibaato ah iyoonkan xilka qaadayna waxaan leenahay eed baad qaadeen ilaahay idin samato bixiyo ilaahay waxaan ka baryahayaa anu dhaqan baan ahay marka uu horeyso kuwii lagu nasto in ilaahay uu ka dhigo kuwii Soomaalida meel ay ku nasato uu hogaamiyana Allah ka dhigo haddaan dhaqankii u hadlayna waa taageersanahay dhammaantood sida madaxweynaha ra'iisul baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha Jawaari iyo professor Dr. Abdi Farah Shirdoon intaba waxaan u leenahay xilka leedii dhiibay ilaahay haydala garab galo waxaa jirto cayaaraha markii la cayaarayo hatta cayaaraha qawaaniin bay leeyihiin cayaar giish la yiraahdo jirto oo qaanuun lahayn waa la iska socdaa ninku marshuu rabo ka soo galiya meesha rabo looga bixiyaa marka taas inayna dhicin oo aad sharciga adkaysaan ayaanu doonaynaa saddexdiina mas'uuliyood ee Soomaalida maanta ay dooratay iyo baarlamaanka waa u digaynaa 4.5 iyo 500 ogaada 7 jir baana wax walbana waa Soomaali hadalkaan ilaahay waa tartaar siyaasadna ugama aniga waxagay waa dhamaadeen wadadii aakhiraan hayaa intaanu ilma adeer ahayn waanu soo wada kacanay iyo intii ila filahay intuba waa dhimatay asaba qorax casar taagan baana hadalkaygu waa tartaar waxa weeye dalka innagaana dumin nin walba wixii hore iska dhaa forget and forgive dalkii aanu kacno maanta sawd haddii la qaado wax magaradka tuuga kan dumiyey iyo ninka wanaagsan sawdka kuwa xun baa helaya waa laynaga badan yahay yaynaan isdhiibin waxyaalaha dadka Soomaalida isku haysta meel jooga waa fakhri weeye waxaan rabaa in sheego wadanka marka nasiibka ay leeyihiin oo ay caawa hogaaminayaan saddexda madaxweynaha prime minister iyo house speaker iyo baarlamaanka Soomaaliya adduunka waa wadanka ugu dhaqaalaha badan weeye adduunka oo dhan macluumaad uranium ku jira waxa weeye 800 oo kun oo tan baa ku jirta adduunka Soomaaliya waxaa ku jira quarter of that 200 oo kun oo tan oo uranium Soomaaliya ku jirta waa su'aal marka maxaan taageerinaa maxaan u support gareynaa maxaan u shiraynaa waxaan u shiraynaa u taageeraynaa u soo dhaweynaynaa dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee dawlad la'aanta 22 sano ku jiray aqoon la'aanta iyo waxbarasho la'aanta iyo nabadgelyo la'aanta ku jiray iyo dalka iyaga la qaybsaday inay dawlad la aamini karo oo lagu aamino oo mustaqbalka dadka iyo dalka wax u ah inay keenaan baan ka sugaynaa
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسعيد بلحان وحان ماشان عاو سوق إيمان فرحدة iyo taageerada رئيس الوزراء الصومالية سعد فارح قراد waxaan u leenahay hambaliyo mid kale waxaan leenahay waa xil weyn nin xil qaaday ee qaad bay Soomaaliya u tiraahdaa insha Allah taala waxaan u leenahay Allah kula garab galo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca wadada toosan oo Soomaali ka rajaynaysana ku hagaajayna noqotaan rajaynayna insha Allah taala wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim magacayga waxa la yiraahdaa Shamsa Cabdullaahi Lowle caaw waxaan meeshaan u imaanay inaan taageerno saddexda ra'iisul jamhuuriya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Saacid Shirdoon iyo ra'iisul baarlamaanka Mr Jawaari waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan oo meeshaan ka dhacday oo taageerina anagoo ah jaaliyada magaalada Columbus waxaan leenahay xilka adag ee guudkeedin ka saaran si wanaagsan u guta salaamu calaykum magacayga waxa la yiraahdaa duniyo degan baan ku magac dheerahay caawo xaflad aad u qurux badan baa halkan ka dhacday Columbus Ohio waxaan hambaliyo iyo salaan iyo bogaadin aan u dirahayaa madaxweynaha Premier Ministerka Saacid Faarax Garaad iyo guddoonka baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Mr Jawaari bismillaahi rahmaani rahiim magacaygu waa Nuurta Maxamed Maxamuud waxaan salaamayaa oo ula duceynayaa saddex ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka iyo ra'iisul jamhuuriyaha waxaan ku salaamaa 114 aayada quraanka cadooda waxaan leeyahay jira oo jooga waxaan leeyahay waa professor noo batay ilaahu ha naga baleeyo waa professor noo batay ilaahu ha naga baleeyo anagu hadaan nahay qurba joogta waxaan u baahanahay dalkayni iyo dawladayni oo ma taqaana diinta iyo cadaaladda lagu dhaqa u baahanahay oo ay si weyn u camirayeen isla markaana dadka boorka uga jafayeen fanaaniinta deegaanka ee magaalada Columbus Ohio ayaa waxa ay ku soo afmeerantay jawi aad u degan adeeqasona Universal TV Columbus Ohio.